haddaa samaysid arrintan aan kuu sheegay maanta, ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa kuu ballan qaaday inuu ku ilaalinayo maalintaas dhan. arrintaas ma taqaanaa? alxamdu lilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuuliillah. walaalaha ilaa dartiisu jecla meel walba aad joogtaan, assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. waa maalintii 6aad oo aan ka sheekeynayno adkaar, ducooyin, aayado, axaadiid oo haddaa mid ka mid samaysid ilaahay subxaanahu wa tacaala ku xifdinaayo. qaar subaxii la sameeyo, qaar galabtii la sameeyo, qaar subaxii galabtii la sameeyo, qaar 3 mar la sameeyo, qaar 10 mar la sameeyo. kulli waa kasoo sheekeynay. maalintii koowaad waxaan kasoo sheekeynay bismillahi alladii laa yadur maca ismihi, qofkii yidhaha 3 mar in la ilaaliyo wax walba laga kaafinayo. maalin labaad waxaan kasoo sheekeynay qul huwa allah, qul acuudu birabbil falaq, qul acuudu birabbilnaas 3 mar subaxii galabtii in la dhahayo. maalin saddexaad waxaan kasoo sheekeynay laa ilaha illa allah waxdahu laa shariika lahu lmulku walahu alxamdu yuxyi wa yumiitu calaa kulli shayin qadiir. salaada subaxii, salaada casir kadib, salaada maqrib kadib aan dhehe. maalinta afraadna waxaan kasoo sheekeynay acuudu bikalimaati illaahi taamaati, qofkii yidhaha 3 mar subaxii galabtii. maalintii shanaad oo shalin waxaan kasoo sheekeynay 2 aayad qofkii aqriya habeenkii in wax walba laga kaafinayo. maantana waa maalintii 6aad. maanta waxaan ku wada waxaa waaye salaad waaye. qur-aanna waa kasoo sheekeynay, ducooyina waa kasoo sheekeynay. maanta salaad waaye. rasuulka sala allahu calayhi wasalam ayaa noo sheegay, ilaahana ballan qaadaya qofkan in la kaafinayo. salaadaasna waxaa waaye subaxii hore inaad tukatid 4 ragco. 2 xadiidaan kuu sheegaa, dan waa fasirayna insha allah tacaala. xadiidka koobaad waxaa wariyey Nucaym al-Ghatafani radia allahu canhu qaala samictu rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam, ku salli nebiga maxamed sala allahu calayhi wasalam, yaquulu asigoo dhahaya nebiga waaya wuxuu leeyahay qaala allahu caza wajal. nebiga ilaahay ka warinaya. xadiidkaas maxaa la dhahay marka? xadiid alqudsiyaa la dhahay. qaala allahu caza wajal, ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi yabna aadam, ibna aadam ani aday nagu socotahay, laa tadac ha ka tegin 4 rakacaatin fii awali nahaar, inaad tukatid 4 ragco maalinta bilowgeeda horo, akfika aakhirahaa. ilaahay wuxuu yidhi anna waxaan kuu ballan qaadaa inaan maalintaas inta ka dhiman wax walbo kaa kaafinaayo. allahu akbar. xadiidkana waxaa wari imaam tirmidi, abu daawuud, saxiix aljaamicna uu ku jira. xadiidka labaadna waxaa warina 2 saxaabi, abi dhar iyo abi dardaa radia allahu canhuma. waxay dhaheen qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam ibna aadam irkac lii 4 rakacaatin fii awali nahaar akfika aakhirahu. xadiidkana waa saxiix aljaamic ayuu ku jira, sheekh albaani saxiix ayuu ka dhigay. allahu akbar. labadan xadiid marka oo saxiixa ah waxaan ka faa'iidaysanaynaa qofkii ilaaliyo 2 ragco iyo 2 ragco 4 ragcadood maalinta bilowgeeda hore. maalinta bilowgeeda hore maxaa laga wadaa? salaada subax iyo 2deeda ragca markaa soo tukatid, qoraxda ay soo baxdo, duxa waxaa tukataa 4 ragca tuko, 2 ragco iyo 2 ragca tuko. 4taas ragca haddaa tukatid maalinta bilowgeeda, maalintaas inta ka dhiman dhan waa laga kaafina. haddana maalinta kale markii la gaaro sidoo kale kuwad maxaa ku jiraysaa marka xirsi. ilaahayaa dhahaya akfika, qof kale maahan. allaha wuxuu ku yidhi anaa ku kaafinayo. culaysmiya marka 4 ragca bis inaad tukatid meeqay kugu qaadanaysa? 5 daqiiqo, 4 daqiiqo, 6 daqiiqo, 8 daqiiqo. ku dadaal suu ilaahay kuu xifdiyo. haddaba walaalayaal, 5tii ducooyin adkaarta aan soo sheegnay balaas tan maanta oo 4 ragco aan ku dadaalnay 6daas insha allah tacaala. ilaahay subxaanahu wa tacaala hana xifdiyo. jiradan iyo cabsidan iyo koronadan allah naga xifdiyo, aamiin dhaha. waa noola xifdina. asbaabta aan qaadano, aan dadaalno, faraheena aan dhaqno, weysada aan ku dadaalno, meelaha oo xanuunka jiro yaan tegin. haddaa adiga xanuunsantid gurigaaga joog, dadka ha dhibin, adkaartana ku dadaal. ilaahayna wuu ku xifdina. ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaa weydiisana dhibaatada inuu naga xifdiyo. ilaahayow inta xanuunsanna caafi, inta kalan xanuunsanayna ilaahayow ka ilaali. aamiin dhaha. bakhiil ha noqonayna ducada xataa. jazaakum allahu khayran, baarak allah fiikum. xadiidka sii gudbiya, ilaahay idin xifdiye. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu.